muddooyinkii u dambeysay magaalada Boorama waxaa ka socday dhismayaasha wadooyin hor leh oo dowladda hoose ee degmada Boorama ay ku waday magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. maayirka magaalada Boorama Mudane Saleebaan Xasan Xadi ayaa maanta kormeero kala duwan ku tagay jidka isku xidha xaafadda Sheekh Cali Jawhar iyo magaalada Boorama iyo wadada cusub ee xaafadda Nafaqo ee Sheekh Ibraahim Bakaal oo dowladda hoose ee degmada Boorama ay gacanta ku hayso. maayirka magaalada Boorama Mudane Saleebaan Xasan Xadi ayaa ka warbixiyay wadooyinkan ay ka hirgeliyeen magaalada Boorama iyo ahmiyadda ay u leeyihiin bulshada. halkani waa dariiqii labaad inta muddo aan gaadhin dhowr bilood aanu ku dhamaystirnay haddii Ilaahay yiraahdo tii hore waanu dhamaystirnay in saaweer nafaqada ka dhacaysay waan dhamaystirnay waa sidaad ku aragteen idinkuba tanna waxaan doonaynaa wiig gudihii inaan ku dhamaystirnay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan maanta culayska saaraynaa wadooyinka magaalada kuwa xidhanna inaanu furno kuwa go'ay ee u baahan in daamir la saarayna daamirka saarna haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aadna waad mahadsantiin bulshada reer Boorama waxaan leenahay ha laga qayb qaato horumarka degmada gaar ahaan wadooyinka hortiina maraya inaad ilaalisaan oo aad ka ilaalisaan biyaha iyo dhibaatooyinka kale ee aad idinku gaarsiinaysaan haddii Ilaahay yiraahdo ilaashadana wadooyinka aadna waa ugu mahadsantiin waxa weeye cashuurta wixii la idinka qaaday waxa wadada lagu dhisayaa wax meel kale laga keenay ma jiraan waa cashuurtii la idinka qaaday idinka wixii la idinka qaaday hadda khasaaraysan dhibteeda leedahay annaga nagula xisaabtama annaguna waa idinku xisaabtayna waxa la waxa dhibaato gaarsiisaan wadada haddii la yiraahdo. telefishinka codka bariga Afrika ayaa maayir Xadi weydiiyay sababta uu ka qayb gali waayay munaasabadda mataanaynta Boorama iyo Hili oo sanad waliba lagu qabto duleedka magaalada London ayaa wuxuu ku jawaabay sababaha waxa weeyaan hawlo qaran oo aan haynay baan uga cudur daaranay runtii oo arkaysa hadda hawsha aan dhex joogno mas'uuliyadda ku faraysa shaqadii ilaa la dhamaystirayo technically wixii ay kaaga baahdaan awaamiir ama hawlo kale ama maadaama shaqay socoto iyaga codsaday nimankii injineeradii inaanan ka tagin oo wixii talooyina ama hawla inaan garab istaago maadaama dadkeeni sharciga ina uu hoggaansamayna mar walba doonayaan qof mas'uula oo garab taagnaado oo hadii lagu soo durkay iyo hadii biyo lagu shubay iyo hadii wada la hagaajinayaba ama la durkinayaba mas'uul bay u baahanaysaa marka waxa weeyaan kulli arinta mahadnaqeynina waana halkan aanu ka xusnay waana u mahadnaqnay mataanaynta iyo sida xiriirka iyagu uu yahay waana mid aan ku ognahay inay qabtaan xiriirkana halka laga sii wado insha Allah muddo dhowna waxaan filaynaa kulli inaan waftiga ku tago markay hawlan iga dhamaadaan. Cabdirasaaq Cumar Micadawliyo wararka telefishinka codka bariga Afrika Boorama.